بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad channelkeena farxiya kushiin asxaabteeda qaaliga marka lii muuqaal cusub isku soo noqosho wanaagsan armaajadaada haddii saan dhar ugu buuxaan ku dhibtay maanta waa toosinayna insha Allah armaajada caruurta oo qolka jiifka caruurta raba inaan hagaajiyo armaajada dharkeeda raba macnaha inaan si qurux badan aan ka dhigo dhinac kale tacshiir oo qurux badan laga sheekeeni karin bariis cad oo aad u macaan badan iyo maraq waxaan rajaynaynaa ka faa'iido doontaan insha Allah soo dhawaada daawasho wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah isbuucina idinka maqnaa karaa la noqda caruur iga xanuunsadeen ma sha Allah doo iska fiican alxamdulillah ilaah mahad iska leh daaw isku soo laabanay waxaan rabaa inaan kariyo bariiska cadda digsiyan dabka saar waxaan ku shubay saliid waxaan ku daray qorfe dhagayaro heel waxa heli kartid ku darso bariiska cad hadii aan u sameystay aad ku anfici doona insha Allah dhinaca kale waxaan ku daray basal hal xabo oo si yar u soo jarjaray waxaan sugayaa basash kastoo kalarkeeda intuu iska yara bedelayo macnaha ay ka bislaanayso haddii ay tahay channelkan markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambareelka taabo si muuqaal walba aan soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah waxaan ku daray qaadada haafkeeda xabaaji dhudhuub ah iyo 2 qaado oo zabiib ah intaas kadib qaadadan dhex marinayaa qaadada markaan dhex mariyo si fiican kadib waxaan ku darayaa biyo waa soo biyeynayna insha Allah biyahan ku darayo waa biyo aan soo karkariyay bariiska qiyaasta marka aad karin leedahay ay ku xiran tahay kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah markuu soo buro ayaan ku soo laaban doonaa insha Allah bariiska aan karinayo waa nus kiilo iyo wax yar 2 koob iyo bar wax saas waaye bariiskan isticmaalay kan waaye bariiska maxmuud bariiskan caadi ma aha bariis aad u dhaadheer laga sheekeeni karin waaye ma sha Allah basmati bariiskan subaxdii hore biyo la dhigi kartaa haddii aqada ka dhigan rabto ama cashaad ka dhigan rabto subaxda horna biyo la dhigtaa fiican bariiskan maxmuud noocan haduu ku yaalo waayo dhaadheer uu sii noqonaya intaas kadib biyo markay bureen waxaan ku soo darayaa bariiskan soo dhaqay qaadadan dhex marinaya insha Allah markuu diyaar noqdo ayaan ku soo laaban doonaa bariiska cad biyaha lagu karnaa haddii aad sidan u sameystid waa ka sheekeynaysaa faraha la isgoosanaa ku dhima faanteen ma sha Allah casho qurux badan qadaa ka dhigan kartaa cusbada ku yar wax yar cusbaan ku darayaa intaas kadib miikaan dhex marinaa daboolkan dhab ku siinayaa bariiska sheekadiisana ku soo dhamaatay markuu diyaar noqdo biyaha dhameysto ayaan ku soo laaban doonaa insha Allah dhinaca kale waxaan rabaa inaan kariyo maraq digaag maraq oo macnaha hilibka digaaga digsiyan dabka saaray waxaan ku shubay saliid waxaan ku daray hal xab basal oo aan si yar yar u soo jarjaray muuqaalka qaybta u dambayso ayaan ka dhigay qolka caruurta armaajada insha Allah muuqaalka dhameystay aad uga faa'iidid waxaan ku daray xabaaji dhudhuub yar basashii markay noo bislaatay iyo xabaaji dhudhuubkii macnaha markay isku bislaadeen waxaan ku darayaa hilibka digaaga kiilo wax yar dhiman kadib waxaan ku darayaa toon kadib waxaan ku darayaa xawaaji alaalikii hilibka ku darsan insha Allah waxaan ku darayaa barbarooniga shiidan qaadada oo wax yar dhiman xawaaji dhudhuub iyo xawaaji burbur isku macnaha xawaaji isku dardar ah qaadada haafkeeda huruud qaadada haafkeeda cusbo ayaan ku daray ugu dambeysay qaadada haafkeeda intaas kadib qaadada dhex marinaya dabkan u yareynaa daboolkan saaraya isaga biyo keenayo kadib ayaan waxaan ku raada aan ku dari doonaa qudaartii oo dhan waxaan soo jarjaray baradho iyo karooti iyo digirta cagaaran qudaartaas aan rabo inaan ku darsan insha Allah qudaarta ku taal baad ku darsan kartaa dhima lahan hilibkii ayuu hilbaad sameysan kartaa qasab ma hilib digaag in laga dhigo intaas kadib u jeedaa wax yar biyo keenay qaadada dhex marinaya qaadada markaan dhex mariyo kadib waxaan soo qaadanayaa digirta cagaaran oo gasaca anaga badana waxa digirtaan ku darsanaa cunada waayo caruurta la rabo inay bartaan caafimaadkana u fiican tahay cagaarka inay caruurta bartaan la rabo qudaarta kadib waxaan soo qaatay karooto 2 xabo oo si dhuudhuuban soo jarjaray kadib waxaan soo qaatay 3 xabo baradho si yar yar soo jarjaray kadib waxaan ku darayaa broccoli geedka cagaarka ee broccoli af Soomaali kale waxa lagu dhahnaa soo qor insha Allah wali kuma maqlin kadib waxaan ku daray jeex barbarooni guduudka oo si yar yar soo jarjaray intaas kadib qaadadan dhex marinaya qaadada markaan dhex mariyo kadib waxaan ku darayaa koob iyo bar oo biyo ah bakeeri koowaad ayaan ku darayaa kadib waxaan ku daray biyaha aan ku daray waa bakeeri iyo bar qiyaasta marka adiga sameynaysa maraq ay ku xiran tahay daboolkan saaray insha Allah markuu diyaar noqdo ayaan ku soo laaban doonaa dhinaca kale bariiska waa diyaar bariis aad u macaan badan laga sheekeeni karin ma sha Allah ugu dambeynta u jeedan sidoo ku soo baxay bariis basmati kan bariiska hadii ay heli kartid kan ayaa aad u wanaagsan hada biyo xitaa lama dhigin biyaha daa la dhigi lahaa wuxuu noqon lahaa dhaadheer baasta la jarjar camal maraqii waa diyaar hadda waa ku soo laabtay dabkan u yareeyay daboolkan dhab ku siiyay ugu dambeyntii maraqii
saan ayuu kusoo baxay maasha allah. maraq aad u macaan badan dhadhan laga sheekeeni karin. hadda waa soo diyaarsanaynaa xashi yar oo kaalis ka arag ee waqti badan kugu qaadanaynin. iska daba laalaabay maxaan kariyaa ma ahan. waxaad karisaa dad ku wareertid farxiyo kushiin soo booqo ayada kaa saxayso jadwalka cuntada. waxaan soo qaatay saxan kadib waxaan soo gurayaa bariiskiisa ujeedaanba. bariiskii markaan kusoo guro dhinaca kale waxaan soo saarayaa maraqa. saan markaa u hagaajisid maasha allah saxanka dhan qurux ayuu noqonayaa. cunno waxaan ku iraadaa soo jiidasho laga sheekeeni karin. cashadii quruxda badneed waxaan rajeynayaa maasha allah inaad ka faa'iideen. muuqaalka like noo saara, like-ta u badiya. maalmahana idinka maqnaa karaal noqda ilmuna iga yar xanuunsadaan anigana waxaa waay kastoo iska caajisay. 7 bari muuqaal idinma soo dhigin insha allah. muuqaalada taxanaha iga barateen ayaan inoo bilaabi doonaa insha allah hadduu ilaahi yiraahdo. cashadii sheekada saan ayay kusoo dhamaatay. waxaan aadaynaa qolka caruurta. armaajadii isku waalatay inkastoo dharka intaan ay ka badnaayeen cirka joogeen dharka qaarkiis oo micnaha maalayacni meesha isaga jiray. waan ka kala xareeyay boorsooyinkan ku guray. intaan aan rabaa had inaan habeen insha allah qaabka ugu fiican oo armaajadaada nafaas kugu noqon karto. dharkana si fiican u hagaajisan karto oo lagu wareerayno. hooy surwaalkii waaye iyo garankii waaye iyo fanaanadii waaye ma jirto. marka hore waxaa u baahan tahay caagadahaas wax weyn ma ahan. waxaa ka heli kartaa supermarketyada qaybta caagadaha iyo maacuunta lagu iibiyo ama suuqa meelaha maxaan ku iraadaa si isli camal hadda meelo waxaa jir soo ma ahan lagu iibiyo caagadaha iyo waxyaabahaas ka helaysaa dhib ma lahan. caagadahaas oo u baahan tahay 4 xabo iyo ka badan waad ka dhigan kartaa micnaha. hadda intaan soo qaata aniga waa 4 xabo. mid waxaa rabaa inaan ku guro sarwaalada, midna waxaan ku guraa fanaanadaha, mid diracyada caruurta ku guri rabaa. qaabka ugu fudud u laalaabi kartid sarwaalkii markaa sida usoo laabtid kadib halkaas ayaa dhinacaas kala soo qabanaysaa kadibna gudaha sida ugu gelinaysaa. saas ay u gelinaysaa maasha allah. mar labaad ayaa hadana isku sii laabaysaa. sarwaaladii oo dhan saana usoo laalaabayaa. way fududahay run ahaantii. waxa ugu dhib badan waxaa waaye dhar laalaabowga. mar walba waa la halaynayaa. dharkii saaka aala laabto ma ahanba wixii dhan waa la isku dhex qasaaya. markaasaa lagu leeyahay fanaanad iyo sarwaalba ma helin. dharkii oo meesha buuxo. waxaa fiican mid walba in meeshiisa la dhigo. shay walba meeshiisa haddii aad dhigatid waxaa waaye jadwalkaaga wuu kuu saxan yahay soo ma ogid. waxaan soo qaatay caagii kadibna waxaan kusoo gurayaa sarwaalkii. canug walba waxaa sarwaalkiisa asaa yaqaano halkaas ayuu kala baxayaa. sarwaaladii oo dhan saas markaa usoo laalaabtid kadib waxaa sameynaysaa mar labaad ayaa sidaas ugu laabaysaa si uu caaga u deeqo. caagii ayaan kusoo guraynaa insha allah wixii sarwaal ah. 2 caag intay noqoto saas ugu soo gurayaa. intaan kaliya ma ahan micnaha waa ku riixriixaysaa ilaa asaga dhan uu buuxsamo. dhinacan kale banaan sidaas camal oo kusoo gurayaa. kuwa yaryar ayaan halkaa ku gurayaa. wixii dhan saana usoo hagaajinaa insha allah. fanaanadihii sidoo kale channelka maxaa dhijir muuqaalka like-ta u badiya asxaabay. qof walba oo daawado muuqaalka waxaan ka codsanayaa inuu like saaro. waxaan jeclahay wixii aniga ii farxad geliya ama aan ka faa'iideynayo idinkaga faa'iideeyo. like-ta kun gaarsiiya insha allah. like-ta markaa u badisaan waxaa waaye channelkana kor ayuu u kacayaa. idinkaa kor u qaadeen haddana idinkaa kor u qaadi karo. 7 bari aan maqnaa waxaa waaye channelka hoos ugu dhacay kor u qaadi insha allah. khayr allah idin siiyo. fanaanadiina saas usoo laalaabayaa kadibna caaga kale ayaan kusoo gurayaa. midda kale waa diracyada yariiska caruurta saas ayaan usoo laalaabayaa insha allah. inkastoo anaga badanaa caruurta dirac le ay isticmaalin ay xiranin dheeroo qabow way soomahan maanta waxaa waaye waxaa u badan micnaha dresyaha ama maxaan ku irahdaa saakooyinka oo qabowga iyo dhaxanta celiyo. kuwaas oo badannahay diracyadu way ku yaryihiin. diracyada dhan intii markaas maxaan ku irahdaa aan ka gaaro ama maxaan ku irahdaa uu deeqo ayaan soo laalaabayaa. ugu dambeynta waa ujeedaan maasha allah 4 caagan kasoo dhigay. mid xijaabadii riiriiskan kusoo guray iyo maxaan ku irahdaa sarwaaladii yaroo gagaaban iyo garamihii ayaan ku guray. kuwa kale waxaa sarwaaladii fanaanadihii diracyadii ama saakooyinkii. saan markay taa waxaa sameynaysaa waa isdul saaraysaa. waa ujeedaan maasha allah. mid walba midi maxaa la dhahaa qof walba sarwaalkiisa iyo wixii markuu meesha kala baxo wax la isku dhex guraa ama la isku dhex daadina ama isku dhex halaabaya ma ahan. armaajadina waa ujeedaan dhinac dhan oo nafaas maasha allah. waa ujeedaan inaba caadi ma ahan. waxaan rajeynayaa ka faa'iideen insha allah. muuqaalka like noo saar asxaabtina usii share gareey. jazakallahu khayran. waxaa idinkaga tahay khayr iyo caafimaad. waxaan rajeynayaa ka faa'iideen insha allah. mac salaam.